waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa muuqaalkii ugu horreeyay ee barnaamij taxanaha oo la magac baxay Isbaro Isla Noolow. Waa barnaamij inta badan aynu kaga hadli doono horumarinta iyo tayeynta shakhsiga. Muuqaalkeenan maantana wuxuu ku saabsan yahay isbarashada iyo inuu qof iska warqabo is-og oo is-yaqaano noqdo. Waxyaalaha uu ka faa'iidayo ama ay dhaxalsiinayso inuu qof iska warqabo oo is-yaqaano oo shakhsigu noqdo. Iyo sidoo kale caqabadaha inaga hortaagan inuu noqono qof isgaranaya. Fiirsiga waxyaalaha kugu hareeraysan, waqti gelinta, baarida iyo lafaguridda fahamkooda iyo kasbashada aqoon ku saabsan shayada iyo guud ahaan sidaad u arkaysa shayada ayaa waxa la dhahaa barasho. Markaynu u nimaadno isbarasho waa fahamka adduunyada gudahaaga iyo qaabka ay u saameynayso natiijooyinka aad helaysid iyo guud ahaan adduunyada dibaddaada. Markaan ku leeyahay adduunyada gudahaaga waa fahamka iyo barashada sifada shakhsiyadaada, caadooyinkaaga, waxyaalaha sida maalinlaha u qabatid, waxyaalaha kuu mudan ee muhiimka ku ah, baahiyaha kuwada ee dhaqaajiyaha ku ah, iyo qiirooyinka emotionska qofka iyo sida ay u saameynayaan natiijooyinka aad helaysid. Haddii aan soo gudbo maxaan ka dhaxlayaa ama aan ka faa'iidayaa inaan noqdo qof iska warqaba, is-yaqaana ama is-og, markasta oo laga warramayo ama laga hadlayo horumar nafeed iyo korriin, waxaan marnaba suurtagal ahayn hadduu qofku isgaranayn inuu horumaro iyo inuu kala marnaba suurtagal maadaama qofku isgaranayn. Waayo horumar kasta wuxuu u baahan yahay laba shay, labadaas oo ah halka aad taagan tahay iyo halka aad u socoto. Mar walba labadaas inay muhiim yihiin. Inaad qof iska warqaba, is-og oo is-yaqaano tahayna waxay kuu suurtagelinaysaa inaad fahamto cidda aad tahay iyo waxa aad u baahan tahay inaad horumariso si aad u gaadho halka aad rabto. Sidoo kale inaad tahay qof iska warqaba waxay awood kuu siinaysaa inaad wax ka bedeli karto qaab fikirkaaga sidaad u fikirto, taasoo iyaduna fududaynaysa inuu qofku qaabayn karo, uu hagaajin karo, uu sixi karo qaabka maskaxdiisa ay wax u turjunto ama perceptionka si guud adduun aragga qofka. Markastoo ay suurto gasho qofku inuu qaabeeyo wax ka bedeli karo sida uu wax u arkayna, sidoo kale waxay taasi gundhig u noqonaysaa qofku inuu bedeli karo emotionskiisa, qiirada ama niyadkaca qofka. taasina ay qofka ka dhigto qof iska adag oo leh self control, iska adkaansho. Markaad iska adag tahay waxaad raacaysaa waxyaalaha kuu muhiimka, kuu mudan ee kuu danta. Waxaad helaysaa natiijooyin ah kuwaad adigu rabtay. Markaad adigu qabatid markaad adigu dooratid waxaad qabanayso, waxaad helaysaa natiijo ah tii aad rabtay. Helidda natiijo aad rabtayna waxay keenaysaa deganaansho iyo qanaaco nafsiya oo gudeed. Markaas oo ay tahay dhacdana waxay ka dhigaysaa nolosha mid salaxan oo degan oo aad adigu dooratay kuna raalli tahay. Sidoo kale dhammaanteen waxaynu rabnaa walaal iyo waalid, saaxiib iyo lamaane qof ina fahma oo fahmi kara duruufaha iyo waayaha nololeedeen ku jirno in ka badan intaynu erayo ku qeexayno. Markastoo aad tahay qof iska warqaba, is-yaqaano oo is-og, waxa kuu fududaanaysa inaad si fudud u fahmi karto dadka kugu hareeraysan, dadka kaa agdhow. Sidoo kale inaad qof is-og, is-yaqaano oo iska warqaba tahay waxay kuu fududaynaysaa inaad fahamtid halka fikirkaaga iyo ficilada aad samaynaysaa ay ku hogaaminayaan ay ku wadaan. Marka laga sheekeynayo guul, weliba guul qanaaco leh, mid ka mid ah factorska ugu waaweyn ee insaanka dhaxalsiiya inay helaan guul ay ku qanacsan yihiin, ay ku raalli yihiin, waxa weeye qofku inuu is-yaqaano. Inaad qof is-yaqaano tahay waa mid ka mid ah waxyaalaha ugu waaweyn ee ku dhaxalsiinaya guul qanaaco leh. Intaasoo dhani waa waxyaalaha aynu ka dhaxlayno aynu ka helayno inaan noqono qof is-yaqaano. Aynu u gudubno maxaa inoo diidan. Waynu ognahay dhammaanteen inaynu u baahannahay waxaan oo dhan, laakiin maxay inoo diidan baa su-aasha meesha taalla. Waxyaalaha inoo diidan waxaa ugu horreeya kowka waxaynu dhisnaa sawir ah sida aynu jecelnahay dadku inay noo arkaan. Waxaynu been abuurnaa cid aynaan ahayn oo aynu matalnaa, innaga oo rabna inaynu dadka u soo bandhigno wejigaas iyo sawirka quruxda badan si ay u aqbalaan. Waxaynu daah saarnaa cidda dhabtaynu nahay. Waxaa laga yaabaa inaad isku haystid qof aad u ilaaliya ballanta, balse taalidigeeda markastoo aad qof ballan gashaan ama aad ku heshiisaan waqti inaad isku timaadaan, waxaad ka soo dib dhacdaa waqtigii adigoo ay kuu fududahay inaad cudurdaar la timaado, sida nin qof familka ka mid ah xanuunsanaya hospitaalkan soo maray, waqtigaan ugu talagalay inaan joogay kan badan baa iga baxday oo saasaan ku soo dahay, roob baa daayay dhulka qoyanaa, tagsigan hore baan u waayay, saa darteed baan u soo dahay. Way kuu fududahay inaad la timaado cudurdaar. laakiin iska warqabka, is-ogaanshaha iyo qof isgaranaya inaad tahay waa diirad saaridda xaqiiqada fikirkaaga iyo ficiladaada. Ma aha waxaad isku malaynaysid iyo waxaad u soo bandhigto dadka si ay kuu moodaan. Dhisidda sawir aynaan ahayn waa mid ka mid ah waxyaalaha inaga hortaagan inaynu noqono qof is-yaqaana. Laba,
daahfurka iyo baarida nafteena dadka qaar waxay u arkaan wax yar qariib oo caadi ahayn, way ka walaacaan, way ka yar cabsadaan inuu qofku ka mashquulo dadka kale iyo adduunyada dibadda oo dhan isla markaana isku mashquulo isagu. dadka qaar waxay arkaan war waxaasi waa leeyahay laga yaabaa inay ku yiraahdaan, laakiin inaad insaanka kale iyo adduunyada kale ku mashquushaa kuu dan maaha. waxaad u baahan tahay inaad jabisid cabsida baarida nafteedii ahaanshahaygu waa wax walaaciya cabsida inaad jabisid. cabsida marka laga sheekeynayo af Ingiriisiga waxaa lagu yiraahdaa erey ka kooban 4 xaraf oo F, E, A iyo R. F-ta waxaa la yiraahdaa waxay taagan tahay false, E-du waxay taagan tahay evidence, A-du waxay taagan tahay appear, halka R-tu ay taagan tahay real oo noqonaysa false evidence appearing real. Soomaalina cadayn beena oo u muuqata run. waxaa la yiraahdaa cabsida aadamaha in ka badan 90% waa mala awaal, waa waxaan jirin. adiguna waxaad u baahan tahay inaad jabisid cabsida daafurka iyo baarida nafteedii ahaanshahaygu waa wax cabsi walaaci waaliyo kala. waxaad u baahan tahay inaad jabisid aad runta u sheegtid cidda dhabteeda tahay inaad ogaatid. qodobka saddexaad isaguna waxyaalaha ugu muhiimsan inta badan aynu u noqon lahayn dad is yaqaan iska warqaba oo dantooda iyo hawlahooda raaca waxa weeye inuu qofku isbarto isla markaana sii wada isbarashada. waxay u baahan tahay nafuris, waxay u baahan tahay ishibeyn inaad adigu isku hurtid adiga cid kale isku hurn adiga isku hurn sidee inaad og tahay qofka aad tahay, halka aad joogto iyo sida aad ficiladaadu yihiin kaliya waa self knowledge. laakiin ogaanshaha inaad ka dhex samaysid isbedelada adigu rabtidii waxay u baahan tahay isuurisi geesinimo. inaad maskaxdaada bedeshid isla markaana aad u bedesho qaabkaada adigu rabtid waxay u baahan tahay dhiraan dheeriya. kuwani waa kuwa ugu waaweyn inta badan ay naga hortaagan tasawir aynaan ahayn inaynu ka cabsano daafurka nafteena, inaynu nafteena isku huri weyno. waa waxyaalaha ugu waaweyn inta badan ay naga hortaagan qof isbarta inaynu noqono oo is yaqaanaa. marka muuqaalkeena maanta waxaan kusoo koobayaa isbaro, is-sharaf, is-ixtiraam, isku kalsoonow.